Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn wararka Soomaaliya kuwa caalamka waxa qayb ka ah xogta guux ka jira magaalada Muqdisho iyo qorshe ka dhanay madaxweyne Farmaajo oo la diyaarshay adoo muxuu yahay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa saraakiisha laamaha amniga maamulka Jubbaland oo kulan degdeg ah yeeshay xilli ay wali jirta xiisad ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi gobolka Gadow doorashada Soomaaliya 2022 dalka ka socoto oo kaatay 2004 haddaba maxay tahay sababtu maxaysan noqon doontaa natiijada ka soo bixi doonto dowladda Ruushka oo hub aan wali lagu arag dunida oo isticmaashay dagaalka ka socda dalka Ukraine iyo dowladda Mareykanka oo kaga digtay China inaysan taageerin dowladda Ruushka qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena ee u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wacan oo wanaagsan waa habeenimo sabti baxaysa xad ayaa soo galaysa taariikhda waa 19ka bisha 3aad 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda aan baqaadno fadlan nagala qayb qaado baahitaanka muuqaalkan adigoo baraha kale ee bulshada ku sii sheer garanaya si aad u hesho xogaha aynu halkan ku soo gudbino follow garaysa page-keena oo ku soo biir sidoo kale YouTube-keena booqo halkan waxaan alaab idinkugu soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya Soomaaliya kuwa caalamka haddii aynu ku bilowno waxaa jiro xoga tilmaamaya in la diyaarsho qorshe ka dhanaya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila lagu kalsoon yahay oo xaqiijiyay warbaahinta Somali News in magaalada Muqdisho ka socda dhaqdhaqaaq ka dhanay madaxweynaha Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda inkastoo aan loogeyn cidda gadaal ka reexaysa dadka wada qorshahaasi haddana waxaa la rabaa in laga hor istaago dib u doorashadiisa madaxweynaha haatan oo olole mar kale ku jiro xogaha ayna helnahay ayaa sheegaya inuu madaxweyne Farmaajo doonayo sidoo xildhibaanada cusub ee labada aqal oo kulamo joogta oo la bilaabi lahaa balse taas ayaa qorshaha aadka looga soo horjeedo sidoo kale xogaha lagu dhantaalaya awoodda madaxweyne Farmaajo waxa qayb ka ah inay diidan yihiin shirka la isugu tagayo magaalada Baydhabo oo mid la mid ah shirarkaasi kaga dhawaaqaya Muqdisho haddii sida wax loo qorsheeyay isbedel aysan ku imaanin dhinacyada ololeynaya barnaamijkaasi ayaa laga soo xigtay inay yihiin kuwa isbedel doona kuwa oo ka soo horjeedo ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo oo dadka arrimaha siyaasadda ka faalooda ay sheegayaan in sanadkan aad ugu holan yahay in mar kale uu soo noqdo waxaa laga yaabaa in kulamadan ay ka soo dhex muuqdaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Odowa xildhibaano kale oo laga soo doortay Hiirshabelle gobolada waqooyi beelaha Banaadiriga iyo kuwa Koonfur Galbeed kulamada hoose ee xildhibaanadan ay ka qayb galayaan ayaa ku soo aadaya xilli la rabo in la fashiliyo damaca Fahad iyo Farmaajo lafta garan ay ku doonayaan in dib xukunka nabad iyo nolol u soo laabto lama saadaalin karo waxa ka dhici kara balse guuxa siyaasadeed ee ballaaranaya caasimadda ka jira gaar ahaan meelaha mucaaradka isugu yimaadaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre Xasan Sheekh Maxamuud Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa muuqatay inay haatan ku jiraan hardan xoogan iyo loolan adag iyo sida xildhibaanada ugu badan ee ka imaanaya deegaanada maamulada loo kala hanan lahaa inkastoo markii labaad doorashada Soomaaliya ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyay markaana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiye shirka bilaha ee golaha amniga Jubbaland oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo shirkaasi intii socday waxaa looga hadlay sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee Jubbaland iyadoo lagu guda jiro doorasho sidoo kalena ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan golaha amniga Jubbaland ayaa intii shirka socday waxay bogaadiyeen howlaha nabadgelyada ee lagu xaqiijinayo ay wadaan laamaha amniga waxay go'aamiyeen in la xoojiyo howlgallada si looga hortago falalka amni darro xilliyada qaarkood dhaco sidoo kale golaha ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka ba'an abaaraha xilligan dalka ka jira ka dhashay iyo sidoo kale qiimo kororka maciishada ku yimi markii uu soo idlaaday shirkan waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaamac Axmed Cali wuxuuna ka warbixiyay muhiimadda shirkaasi oo looga hadlay qodobada dhowra waxyaabaha ugu muhiimsanaa waa in amniga kor loo qaaday isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabta xilligan abaaraha deegaanada Jubbaland ka jiro sidoo kale ambaqaadka doorashada gobolka Gadow oo deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland xilli biri lagu waday 4 kursi ee ku dhiman Kismaayo halka lagu doorto inkastoo dooda weyn ay ku gadaaman yihiin doorashada gobolka Gadow sidii ay Jubbaland awood weyn ugu yeelan lahayd haddana golaha amniga ayaa isla soo hadal qaaday doorkooda amni iyo sida ugu macquulsan ee loo qaban karo doorashadaas oo xiisad weyn ay ka taagan tahay markaana safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo saartay fariin ku socota madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawi iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa marka hore lagula hadlay madaxweynaha Puntland Siciid Dani maamulkiisa maalintii shalay ahayd soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka. Safiirka Mareykanka ayaa maamulada Jubbaland iyo Hirshabelle loogu baaqay inay soo dhameeyaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-koowaad ee ku harsan deegaanada oo tir ahaan gaaraya 33 xildhibaan. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-koowaad ee dalka waxaa hore u soo gabagabeeyay maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Galmudug, waxaana shalay doorashada oo waqtigii loo asteeyay kadib dhacday soo dhameeyay Puntland, iyadoo la doortay dhammaanba xildhibaanada ka soo jeeda maamuladaasi. 15 bisha Maars ayna ku guda jirnaa ayuu qorshe u ahaa in la soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka, balse mar labaad ayay dib u dhacday doorashada, waxaana mar labaad waqtigii lagu heshiiyay doorashada ku dhammeyn waayay maamulada Jubbaland, Hirshabelle, Puntland, waxaana haatan mar labaad cadaadis xooggan la kulmaya maamulada madaxda Hirshabelle iyo Jubbaland. Axmed Madoobe iyo Guudlaawe ayaa haatan loogu baaqaya in la dardargeliyo doorashada deegaanadooda ku dhiman si loo ambaqaado doorashada madaxtinimo iyo doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka. Inkastoo Soomaaliya ay muddo badan ku dahdo hal sano ka badan jiitanka doorashada saameyn weyn ay dalka ku yeelatay, haddana saaxiibada Soomaaliya ayaa ku baaqaya in la dardargeliyo doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan. Isla wararka doorashooyinka ayaynu ku guda jirnay. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa ka hadlay meelo badan oo isaga yihiin doorashadii hadda ka hor dalka ka dhacday 2004 ee lagu dhisay baarlamaankii soo doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo doorashada haatan dalka ka socoto. Cumar Cabdirashiid qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in gobolfalada ka dhacay doorashada hadda gabagabada ah ay horseedi karaan arrimo xasaasi ah sidoo hadalka u dhigay. Cumar Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri doorashadii baarlamaanka 2022 waxay meelo badan kaga eg tahay doorashadii 2004 xagga qaabka loo maray iyo xitaa muddada. Haddii ay falcelinta noqotay soo bixitaankii maxkamadihii Islaamiga ahayd, waxay horseedi karaan tacadiyo sharci darro ah oo dhacay haddii aan wax laga bedelin qaabka haatan socda oo khatar weyn ah, ayuu yiri. Macadda boobka doorashada waxaa ka dhalan doona xildhibaanada golaha shacabka, balse qorshaha ayaa markii dhowaan la soo dhameeyo xildhibaanada golaha shacabka in la gudagalo doorashada madaxtinimo iyo sidoo kale guddoomiyaasha doorashooyinkooda. Ugu dambeyntiina dowladda Ruushka ayaa Jimcihii adeegsatay gantaalo cusub oo aad xawaarahooda u dheereeyaan, waxaana la doonayay inay ku soo burburiyaan kaydka dhulka hoostiisa ah ee lagu kaliyo gantaalada iyo rasaasta ee dalka Ukraine. Goobta la weeraray ayaa u dhow Romania, dal xubin ka ah xulafada NATO, waxaana tani ay falaqayaasha ku sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay taariikhda dunida oo la adeegsado hubka caynkana oo ay Ruushka ku rideen Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa warkan xaqiijisay Sabtidii maanta waxayna timid 24 saac. Colaadan ayaa xilli Ukraine iska caawin xoogan ay kala kulmayso dalka ciidamada Ruushka weerarka ku soo qaaday, ayaana haatan lagu baaqayay in dagaalkaasi degdeg loo joojiyo. Ruushka weli ma qaran wax dagaal u isticmaalo hubkan saameyntiisa ay badan tahay. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay nidaamka gantaalada oo wata gantaalada hawada sare lagu burburiyay goobo muhiim ah ee dalkaasi ku yaal Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku baaqay in si degdeg loo joojiyo dagaalkaasi, balse Putin way ka dhaga adeegaya hadallada kaga soo yeeraya dalalka reer Yurub iyo kuwa Ameerika. Inta ayaan ku soo gabagabeynaa khiyaaray tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. Fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaara sii share garay saaxiibadada kale si gaarsi. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka mid lamid ah. Inta kulmi doono nabadgelyo.